رئيسل وزراء حكومة فدرالك الصومالية مدن حسن علي قيرايا توابر سعودي عيدان كبوليس كدولة فدرالك الصومالية مدة كله لبس سنة وصو حراي عسكر كميدة عيدان كبوليس كالصومالية ودوان كصو بيراي عيدان كبوليس sidoo kalena waxa uu dalacsiiyay 190 kamid ah askartani oo tababarka muddada 2 sano ah qaatay kusimaha taliyaha ciidanka booliiska dawladda federaalka ee Soomaaliya ahna taliyaha ku xigeenka ciidanka booliiska dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa ka warbixiyay askartani la dalacsiiyay iyo sidoo kale heerarkooda mudan ra'iisul wasaare maanta oo taariikhdu tahay 3 bishii koowaad 2018 waxa hortaada taagan oo aad meeshan darajo u xirtay ليلى سراكيل isugu jiray dhalinyaro jaamacad ka soo baxay iyo dhalinyaro dugsiga sare ka soo baxay oo ku soo biiray ciidanka booliiska Soomaaliyeed dhamaantood waxay soo dhameysteen tababaradii waxay isugu jiraan kuwa tababar dibadda ku soo qaatay Uganda meesha la yiraahdo Ethiopia iyo dalka gudihiisa qaarkood waxay tababar gaaban u tagan dalka Djibouti maanta ayaa nasiib wanaag waxay ku soo aaday maalintii ay garaadaha qaada lahaayeen oo saraakiil ciidanka booliiska Soomaaliyeed ku soo biirtay noqon lahaayeen wasiirka amniga dawladda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Abuukar Islow Ducaale ayaa kula dardaarmay in si daacad ah ay ugu shaqeeyaan shacabka Soomaaliyeed maanta waxa farxad ah inaan u soo xirno tababarkii ay ku jireen muddo 2 sano 2015 ku bilaa 2015 wuxuu June wuxuu soo ilaa 2017 bishii June mudday sugayeen loo xiro markii suu taliyaan sheeg waxay isugu jiraan arday ka soo baxay dugsiga sare ee jaamacad saa hortaada ka muuqdo waxay isugu jiraan gabdhay wiilal muddo adag ee tababarku soo jireen dalka gudihiisa dibadiisa ku soo qaateen marka maanta waxaan farxad gelinayso in tababarkooda uu soo ilaado marka waxaan kula dardaarmayaa leeli saraakiisha maanta tababarku xirmay in dalkooda ugu shaqeeyaan si daacad ee dadku u hoggaansadaan shacabkuna u hoggaansadaan sidoo kale waxaan leeyahay wax badan aan idin sugayay muddo 2 sano soo qaadateen waxaan rajaynayaa wax badan aad ka bedeshaan booliiska waa saaxiibka koowaad ee bulshada marka waxaan rajaynayaa in dadka shacabka si fiican u dhaqantaan ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane حسن علي قيرا يا أبو باغين إن أسكرتان هاتنا دلعسية سيدو كلنا توبرك الله صوحري كانين ويني كقاتان هرمركا دالكا مركا كحكتا جانا مختار وكما حسنتا أديجي أكاديمية دوبا شغادة في عنا والقرن كوها إيسان لغا صوب بالله سنة كي يكون سغال بقولي كنتني كوغي إن مالين أما بل والبا أما سند والبا هل كان مناسبة كدعانا يقوه الرئيسو إن توبر لغو سوقاتو waxay tilmaan ka tahay qorayso dhiibka qarannimada Soomaaliyeed ugu dambeyntiina waxa uu soo xiray tababarkii u socday muddada 2 sano askarta maanta la dalacsiiyay idinkugu soo xirmay tababarkiina oo aad fushan kartaan howlihiina qaranka waana maatantii Farxii Maxamuud Yuusuf Sum News TV xarunta General Kaahiye ee magaalada Muqdisho